وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeenadii barakada badnaa iyo ayaamihii qaaliga ahaa baynu ku jirnaa. markaa waxaynu wax iska xusuusin doonaa cilmiga la xidhiidha. nabiga calayhi salaatu wasalaam marka ayaamahan oo kala gaadho waxay Caaisha leedahay Allah ka raali noqdo sida saxiix Muslim ku sugan: axya al-layla wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zar. habeenku noolaynay ilaa dalka iyo dadka iyo waqtiguba diinta iyo cibaadadu ku nool yihiin. waxa dhan waa baqtiyeen haddii diin iyo cibaado la waayo. wa ayqadha ahlahu, ehelkiisuna si ay khayrka ula wadaagaan wuu toosin jiray. oo islaamku ma yaqaano wadaad isaguna cibaadaysanaya islaantiisuna quurinayso. way isla jaan qaadaya, wuxuu jecel yahay buu la jecel yahay ehelkiisana. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كنت أنا وقت كيسان جري وهو تاجن مباحات كوي رئيسان جري يا وحي حلاشة وهاسده هرددي يا عنادي يا وحي همدي يا وحي لمنا. وليبا مركز طبعا كدم بي مادان طبعا كانت دلال كيس واسيب بدين جري الرسول صلى الله عليه وسلم يدور لقب هذه الدنيا هذين كي خير كلها. sidaasoo kale ay ahaayeen dadkii saalixiinta ahaa ee nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam cibaadada kaga dayan jiray. salafuna saalix tacmiirta habeenka ku sameyn jireen ilaa 6 siyood in ay ahayd baa culimada taariikhdu xusaan. qoliyaha qaarkood habeenadan oo kale waxay ku dadaali jireen weysada cishaayiga ku tukadeen inay subaxana ku tukadaan. وور عجيبة صومها حاضر لي يا بس أصحاب المرقان كمان ما دركت ورانا يهبين كامل تجين مرك الله يدا واجب بعد الله عايز ذو تريجنا أيوه مقورنا يا فقال هذا بالوده مرك قال هذا ده بالوده ده حاجة هاي كونا بتيت كود عبادة دي الروح ذها قال سوي شرتي ما أنتم بحاجة سيحن شري مرنا شقي سنشري. qolada kale habeenka kala barkii baa cibaadaysan jiray. qum illayla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi. habeenka kala barna waa seexanay, kala barna way soo jeedayaan. qolo kalena soom salaadii nabi daawud oo kale 3 meelood oo meel 4 saacadood bay cibaadaysan jiray. qolada afraadna sudusul layl habeenka 2 saacadood oo kamid ah. qolada shanaadna way wadi jireen ilaa ay lulaadaan. meel ay luladaasi la soo gaadhaba oo de waa la diiday markuu qofku lulaado salaad sunnah inuu sii wado ilaa khushuucdi baa dhimanaysa. way wadayaan markay lulaadaan ba iska jiifsanayaan. qolada lixaadna yataxayanuuna saxar waxay la eegan jireen suxuurta. waqtigaa ilaahay uu soo degayo addoomaha leeyahay codsi qadimaya, yaa dambi dhaafi weydiisanaya, yaa waxay baryaya. waqtigaasay ku beegi jireenoo labada habeenimo iyo wixii ka dambeeyay kici jireen. 6 nooc bay ahaayeen. waa kala ahaa maqaaladii caanka ahaa ninka la odhan jiray zamcatu alcaabid. marka had iyo jeer dee intooda deegaanka ku wada nool ama magaalada ama xaafadda ayaa wuxuu isku dayi jiray inuu soo toosiyo dadkaas sidaa ilaahay baa wuri sidaa nabigu calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisu ahaa ay qad ahla ehelkiisu toosin jiray, isaguna ehelkii asxaabtu toosin jiray. markaasaa wuxuu odhan jiray yaa ayuha saxar yaa ayuha mucarisuun. nimankiinan habeenka degayo wuxuu safar buu ka soo qaadaya adduunyada iyo nolosheedii. atarquduuna kula leyl, xaafadda dhexdeedu ka dhawaaqaya war macaawo dhan baa hurdaysaan. alaa taquumuuna fatartaxiluun, war miyaydaan soo kacayno safarkii aydaan harayn ila safarkii aakhira loo socdaay. fahunaaka fahaa hunaa min mutawadi wahaa hunaa min daacin wahaa hunaa min baakin. horaa loo ajiibi jirayoo nin degdeg u weysaysanaya oo kaga qabqabsiinaya weelka, iyo mid kale oo ducaysanaya, iyo mid kale oo khushuuc la ilmaynaya. noocyadaasay ahaayeen.
قيام الليل كان ودنها بيننا قالقة وحولي أسباب معينة للمؤمن قفك مؤمن كاو حيابة السبب أما أهربك ساعدي كرا مادية ومعنوية أو ظاهرة وباطنة ومهمين أن أهرمها وقانانا سيادة عبادة ذا لو شقوينا أينو قبان كرنا وحيابها هذه شركة ساعدة يوانا تقرتها وحكوك أقون وشيء هدي أنو قفك أقون لهين وانا دردمو mana dhugan karo oo de miisaankiisa iyo macnihiisa aanu garanayn marka inuu qofku garanayo qiyaamul leylkan daliilada ku soo arooray iyo fadligiisa inuu wax ka barto way jeclaysiinaysaa arinta aad bay muhiim u tahay wixii aad garanayso baad la jaan qaadi karta arinta labaad waxa weeye qofku maalintii inuu iska yareeyo dambiyada baraka la'aan weyn buu leeyahay dambigu awsaartu فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم dadku markay xaqa ka leexdaan ilaahayna qalbigooda cibaadada ka leexiya cuquba ilaada marka hadduu qofku dambiga maalintii badsada cibaadada habeenkii uma kici karo ila qalbi madoobaad baa ku sii dhacayay arinta saddexaad waxa weeye inuu qofku maalintii soo yara seexdo hadaa doonaysa habeenkii inaad hawl gasho dee wanaad maalintii qayluula samaysaa soo nasata arinta kale waxa weeyaan taqliilu tacab fi nahaar inuu qofku shaqada soo yareeyo maalintii hadduu qofku shaqo adag qabto isugu bixiyo 8 saacadood 10 saacadood oo xiriir sidoo kici habeenkii dee uu qardoonaya u dhacaya arrimahaas waa arrimaha daahirka ah ee muuqanaya maadiyaadka ah la taaban kara macnawiyaadka waxa ka mid ah salaamatul qalbi bay leeyahay ragii tijaabiyay arinta sirteeda ragii u dhaadhacay ka jibba keenay daraasadaha ka qoreen waxay leeyihiin salaamatul qalbi jiro oo qofka qalbigiisu waa inuu u fayow yahay qalbiga Allah inoo caafiyo cudurrada shakiga iyo waswaaska iyo naxliga iyo nacaybsiyaha iyo karaahiyada diinta iyo qalbi caafimaad qabo inuu Ilaahay la hor yimaado markaas abateed u heli karaya inuu kaco marka qalbiga aan cinaayayno qalbiga aan danayno sideen wadnaha ba maaragtay kolba dhakhtarka wadnaha ugu tagay bal ECG bahalki isaar in waxa nibayn xididada in kala war xididadan kala ka khatar badan haday xididada ruuxdu xidhmaan way ku dhamaatay adigoo isqolfoofo iska soconaya sarkays الخوف الغالب من الله ومن الآخرة arinta labaadna waxa weeyaa inuu qofku ilaahay aakhira ka cabsanayo qofku hadaanu ilaahay xusuusnayn aakhirana xusuusnayn sidoo uu cibaadeysanaya maxaa soo kicinaya habeenkii waxa soo istaaraya soo kicin kara hadaanay cabsi ilaahay ahayn maxaa kicin kara marka waan cabsi ilaahay jirto oo uu leeyahay waa taas oo waa la dhimanaya si degdeg ah loo socdaaye talo ilaahay baad aakhirada soo taagaysaa talo maxaad la shirtagaysaa talo maad ka gaarsiin doontaa caawa inta cibaadada sameynaysa mise sidii hebel ayaa lagu qaadi doonaa maqsinadii oxygen-ta la raadinayay ee la lahaa war oxygen yahay oxygen-tiba la waayay ila 10 buu karoonaha inoo yahay waxaan degdega cunaqabad baa la yaabalka dad badan oo ilaahay baa aqoonsanay ama isdhaga marinayo cunaha ku dhagaya fayraska yar cajiibka ah waa tusaale cajiib weey arinta saddexaad waxa weeyaan inuu qofku ilaahay jecel yahay subxaanahu wa ta'ala jacaylka ilaahay aad jeceshahayna waa arrimaha baacidka ugu weyn weey ilaahay waanaynu jecel waanaynu ka cabsanaynaa arinta ma yeeshaan makhluuqa qofka aad ka cabsanayso ma jeclaatid ka jeceshahayna kama cabsatid laakiin ilaahay labadaba waynu wada leenahay waanaynu ka cabsanaynaa waanaynu ku jecelahay arrimaha sideeda ah markuu qofku leeyahay habeenkii si dhib yar buu soo kacaya oo way u sahlanaanaysa waqtigan qaaligeenu marayna waa habeenkii laylatul qadriga oo sharafteeda ilaahay markuu ka warramay uu tilmaamay quraanka la soo dajiyay habeenka isaga suuradan oo quraanka kamida loogu magac daray habeen wada nabadgeliyaawiya malaa'ikta ilaahay aad u farabadan yihiin oo makhluuqa ugu farabadan habeenka malaa'iktu ay kamidaan shaytaankiiba meel u marayaan la arkayn habeen wada nabadgeliyaa habeenka maxaynu ku hawl galaynaa waa qiyaam sara joog iyo quraankeenu akhriyeynay iyo dhikri iyo ducadu nabigu sheegay calayhi salaatu wassalaam habeenka hadan garta maxaan idhaahdaa bay leedahay Aisha قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني
ducada badi ilaahay way cafi cafiskaagu badan cafiskaad jeceshahay cafiska cid kale lagama helo wey cafiskaasaynu ilaahay weydiisanayna waxa sii raaca ducadaas saa uu nabigu cadaynaya man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi waa qof niyad wanaagsan oo ajri ilaahay ka sugaya oo cibaadaysanaya dembigaa laga dhaafaya dadka qaarkood baa laga yaabaa si yaroo gaaban u fikirayo hankoodu yar yahay inay idhaahdaan waniyo dembi dhaafkaasunbaa la sheegaya tolo wax arsaaqadoo kale miyaan laysa siinay oo idhaahdaan iyo ducooyinkan oo dhami dembi dhaaf iyo waxay ku ururayaan naxariis iyo janne eh tolow doolarkii iyo dahabkii iyo dunyadii iyo dadkii lagu siinayay mee ruuxani waa wax iska sokeeya waxaan aad ka warramayso waa wax xayawaankan agteenuba ay hela iyagoo waliba bilaa kayda xayawaanka adduunyada ku nool intee kun oo jeer buu inaga badan yahay kaydna ma haysto waanu iska dhargayaa waa kaasoo uu iska dhaqanayaa dhan walba uu ridayaa marka waxaan uu iska sokeeyaa oo agtaadu yaalyaalaay laakiin arrimahan ilaahay uu ku xidhan baynu mar walba baryaynaa ibliiska iyo naftuna ay nagala dagaalamayaan marka dadaalkeenu waa ka waqtigeenu maraynaana saas uu fadli badan yahay dadkaynu ku dayan jirnayna saasay u dadaalayaan allahayna waafajiyo sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi subhana rabbika